waa subax khamiisa bisha abril waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitriban iyo bogga voasomali.com idaacadeena saaki iyo caalamkana waxaa idin haya anigoo ah maxamed cabdi iyo sahra cabdi axmed. qodobada aan idinkugu hayna idaacadda saakana waxaa ka mid ah hay-adaha iyo dadka u dooda xuquuqda dadka qaxootiga oo sheegay inay hoos u dhacday sanadkan qaxootigii dalkan maraykanka soo geli jiray sanadkii 2017 xilligan oo kale ama 6 bilood oo ugu horeysay dalka waxaa yimid 18,000 oo muslimiin ah halka sanadkan ay ka yimaadeen 1,700 oo keliya ah marka taas waxay u dhigmataa boqolkiiba 91 in hoos ay u dhaceen tiradii dadka muslimiin dalalka muslimiinta ka soo jeeday dalkan soo gali jirtay. intaasi waxaa sii dheer inay weli xanabi yihiin qoysas dagaalada sokeeya kala qaxay ee doonayay inay dib u midoobaan oo la ogolaaday inay soo galaan dalkan ee safaaradaha ay joogaan macnaha imtixaanada iyo caafimaad wax kastaba loo dhameeyay haddana soo gelitaanka ilaa waqtigan culays uu ka saaray. waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay orodyahan Soomaaliya oo u ordayay dalka Holland oo sanadkan ka qayb galay tartanka orodka magaalada Boston gobolka Massachusetts ee dalka Mareykanka. ciyaarihii iyo qodobo kale oo wararka Ameerikaba ay ku jiraan waa idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararkeena caalamka ugu waaweynaa. madaxweynaha maraykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa Arbacadii iyo Talaadadii ku kulansanaa gobolka Florida ee koonfur bari Maraykanka iyagoo ka wada hadlayay arrimaha ganacsiga. madaxweynaha ayaa sheegay in heshiisyada ganacsi ay ku wanaagsan yihiin in dalalku ay si toos ah u wada galaan oo ayna habboonayn in ururo ay dalal badani ku bohoobeen lagu galo. dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa xaqiijiyey warar markii hore uu faafiyey wargeyska The New York Times waa aan dhahday Washington Post hase yeeshee uu aqalka cadi ka aamusnaa warkaas oo ah in madaxa hay-adda CIA-da Mike Pompeo uu kulan sira magaalada Pyongyang kula yeeshay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. madaxweyne Trump ayaa sheegay in isaga iyo Kim Jong-un ay wada kulmayaan bisha May ee fooda inagu soo haysa. ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa madaxweyne Trump ku ammaanay inuu ogolaaday in shir madaxeed uu la yeesho madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un. koox ka socota qaybta qaramada midoobay ee iyagu amniga qaabilsan ayaa qaraxyo iyo xabado lagu riday la kulmay iyagoo isku dayaya inay kormeer ku sameeyaan magaalo ku taalla waddanka Suuriya xilli ay sugayeen kooxda baaraysa hubka kiimikada ah. madaxa kooxdan Axmed Uzomju ayaa waxa uu Arbacadii shalay ahayd sheegay in ay isugu yimaadeen goobtii koowaad ee kulankooda ugu ballansanaayeen sida uu markii horeba qorshuhu ahaa hase ahaatee markii ay gaareen goobtii labaad ay la kulmeen rasaas iyo qaraxyo. waxa uu sheegay in arrintan ay ka dhacday Talaadadii iyada oo kooxdiisa ay dib ugu noqotay magaalada Dimashq markii dambe. war ay VOA-du heshay kana heshay qaramada midoobeyna waxa uu sheegayaa in xubnihii amniga ee qaramada midoobay ayna u midkoodna uusan waxba ku noqon aan raahday markii rasaastaasi iyo qaraxyadaasi ay la kulmeen. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkad wararkaasi kala socotaanna waa VOA Washington. magaalada Washington waxaa soo gaadhay ku dhowaad 70 ka mid a ururada iyo dadka u dooda xuquuqda qaxootiga oo ujeedadoodu ay ahayd sida ay kulama ula qaadan lahaayeen xubnaha golaha koongareeska ugana dhaadhicin lahaayeen in wax ka beddel lagu sameeyo arrimaha qaxootiga iyo soo galootiga dalkan oo sanadkan wax ku dhow 90% hoos u dhac ku yimid tiradii dadka qaxootiga ahaa ee la keeni jiray dalka Maraykanka marka la barbar dhigo sanadii hore. deeqow diiriya sagaar oo ka mid ah dhalinyarada u dooda xuquuqda qaxootiga ayaa ka mid ahaa dadkaasi. saare cabdi axmed ayuuna ugu warramay stuudiyaha VOA-da magaalada Washington oo uu nagu soo booqday. saaray waad mahadsanta marka koowaad walaal. halkan waxaanu ku dhimaanay ilaa 70 ruux oo ka kala yimid dalka Maraykanka oo dhan dacladiisa. dadkaasna intooda badan waxay matalaan ama ay u shaqeeyaan hay-adaha qaxootiga u ololeeya ama la shaqeeya. saaray saad ogtahayba waxaa hoos u dhacay sanadkan tiradii dadka la keeni jiray
qaxootiga dalka maraykanka dib u dejinta laga siin jiray. Tiradaasoo marka horeba madaxweynaha uu ku koobay 45,000 oo ahay tiradii ugu hooseysay sanadka miisaaniyadda maraykanka oo soo bilowday bishii 10aad raaliga noqo sanadkii lasoo dhaafay oo dhammaanaya bisha 9aad sanadkan waxaa ka hartay 5 bilood oo keliya 45,000 madaxweynaha u ballan qaadayna ilaa haddadan waxaa ka timid 11,000 oo keliya. waa garta markaas waa marka guud ahaan laga hadlayo qaxootiga oo dhan mase soomaalida ka wadaa qaxootiga oo dhan oo dalka adduunka dhanka kale imaanaya Asia, Africa, Europe 11,000 baa ka yimid. waa gartay dadka Soomaaliya ee ku jirta dadkeeda oo kaleeto oo horey loo mamnuucay ama sida gaarka 6-7 wadan ee lagu soo celcelinayo wareegtada madaxweyne ee saameynta ku yeelatay ma ahane wadamada kale maxaa ku dhacay gabi ahaanba waad ogtahay Saaray madaxweynahan markuu xilka u tartamay waxyaabay uu ku ololay waxaa ka mid ahayd in uu joojin doono ama uu xaqiiqdii yareen doono dadka ku soo qulqulaya dalka Mareykanka sharci ha ku yimaadeen ama sharci darro ku yimaadeen taas ayaa marka hakad fara badan gelisay dadka qaxootiga dalkan la keeni jiray waxaa xusid mudan ilaa 65 milyan oo barakacayaal iyo qaxooti inay adduunka ku kala firaarsan yihiin sanadkanna waxaa laga filayay dalka Mareykanka maadaama tirada qaxootiga ama barakacayaasha ay aad u tiro bateen in Mareykanka uu laba jibaaro tiradii dadka dib u dejinta u siin jiray hase ahaatee ilaa haddadan boqolkiiba 75 ayay hoos u dhacday tiradii dadka dalkan iman jirtay. waa gartay marka hoos u dhacaasi saameyn intee leeg ayuu ku yeeshay hay-adihii dadka qaxootiga keeni jiray hadday noqoto kuwa dibudejinta ku samayn jiray iyo dabcan dadkii qaxootiga ahaa ee wadankan sanad walbaba u qaadin jiray ama loo sii diiwaangelin jirayba wuxuu ku keeni dee waxaad ogtahay in badan in xafiisyo fara badan la xiray waayo xafiisyadan waxay ku xiran yihiin intooda badan u shaqaynta dadka qaxootiga ah intaasi waxaa sii dheer dadka muslimiinta ah boqolkiiba 91 bay hoos u dhaceen tirada imaan jirtay tusaale ahaan haddaan ku soo qaato sanadkii 2017 xilligan oo kale ama 6 bilood ugu horeysay dalka waxaa yimid 18,000 oo muslimiin ah halka sanadkan ay ka yimaadeen 1,700 oo keliya ah marka taas waxay u dhigmataa boqolkiiba 91 in hoos ay u dhaceen tiradii dadka dalalka muslimiinta ka soo jooday dalkan soo geli jirtay intaasi waxaa sii dheer inay weli xanabi yihiin qoysas dagaalada sokeeya kala qaxay ee doonayay inay dib u midoobaan oo la ogolaaday inay soo galaan dalkan ee safaaradaha ay joogaan macnaha imtixaanadii iyo caafimaadka wax kastaba loo dhameeyey haddana soo gelitaanka ilaa waqtigan culays uu ka saaran yahay waayahay olola hadda aad wadaan hadda waxaad ku imaadeen saad ii sheegtay in ku dhadhow 70 ee dadka u ololeeya qaxootiga iyo hay-adaha kasoo jeeda oo cid walba leh oo halkan ku qabtay ee kulamada marka senataradan aad la kulmaysaan iyo hay-adahan albaabadooda aad garaacaysaan sidee ayaad rajo uga qabtaan inay wax ka bedel ku samayso go-aanka dowladda gaar ahaana wareegtidii madaxweynaha marka koowaad waxaanu 3 arrimood ayaa laga doonayaa macnaha ulajeedada koowaad ee aanu iskugu niman halkan kow inaanu ku cadaadino ama culays aan ku saarno ama aan ku boorino Kongareeska Mareykanka in madaxweynaha Mareykanka uu ogolaada 45,000 ee u ballan qaaday sanadkan bilowgiisii waa midda koowaad waa midda labaad in sanadka soo socda oo 2019 ah oo bisha 10aad sanadkan bilaabanaya in ugu yaraan 75,000 dib u dejin la siiyo oo ah tiradii isku celcelis horaan la keeni jiray dalkan iyo midda saddexaad in dhaqaalaha la siin jiray qaxootiga kuwa dalka dibadiisa jira iyo kuwa dalka dibadiisa joogaba la kordhiyo ama sidoodii loo daayo waayo waxaad ogtahay in dowladda Mareykanka ay dhimayso miisaaniyaddii ay ku bixin jirtay arrimaha gargaarka bini'aadamiyada dad badan oo qaxootina adduunka ay ku kala firaarsan yihiin marka midda labaad Saaray waxaan rabaa inaan hoos ka xariiqo inta badan marka laga hadlayo qaxooti waxaa loo malaynayaa in dad la badbaadinaya ay yihiin waa inay tahay xaqiiqdii dad badan baa ka faa'iideysta balse tusaale ahaan sanadkii aanu soo dhaafnay dadkii yimid waxaa ku baxday qarash ahaan lacag dhan $5 milyan sanadkii ugu horreeyey oo caawimaad ah isla sanadkaasi dadkaasi waxay soo celiyeen $48 milyan oo canshuur ay ku bixiyeen marka arintan xagga bini'aadanimada kaliya inaan laga fiilinin laakiinse laga fiiriyo xagga dhaqaalaha wax soo saar inay leeyihiin tusaale ahaan aniga goboladan ka imid mataqaana bartamaha Mareykanka waxaa ku badan warshadaha hilibka sameeya boqolkiina 90 dadka ka shaqeeya waa dad qaxooti ah tusaale ahaan magaalaan Mandowta tagay oo la yiraahdo Lexington Nebraska ku taala naagta
manajerka kaamara la hadlayay waxay ugu tiri 85% dadka ii shaqeeya oo tiradooda ilaa 4,000 ah waa Soomaali. waa tahay laakiin waayo dadka saas u muuqda oo wax soo saar kale oo hadda xataa siyaasadii dalka Mareykanka qayb lixaad la ka gala ee dabcan Ilhaan Cumar iyo dadka lamidka qaxootiyadii dhadhaab ka imaaday Soomaalida ee muddooyinkan dambaba ku jiraan 20 sano maxaa il gaara wadamada lagu eegayo geliyay taas xataa calaamad su'aalkaas waa runta yacni ninkan xisbiga uu ka tirsan yahay siiba garabka midig inta badan waxa ay ku caanbaxayn macnaha dee isir nacayb iyo xaqiiqdii wax la oran karaa diin nacayb marka inta badan looma eegayo oo keliya ah dadka wax soo saarkooda laakiinse waxay u arkaan dad kala wareegaya dalkoodii la wareega bedelaya dhaqankoodii keenaya dhaqamo kale ama diimo kale ayay u arkaan inta badan marka taasna inta badan annaka awoodannada waxaanu saarnaa in aanu dadkani baraarujinno wacyigelinno tusno wanaaga ay leeyihiin dadka soo galootiga ah si aanan maskaxdooda ugu meerno yacni waxyaabaha ay ayaga iska dhaadhiciyeen ee qaladka ah kaasi wuxuu ahaa deeqow diiriya sagaar oo ka mid a dhallinyarada u dooda xuquuqda qaxootiga dalkan maraykankana u yimid kulan ay la yeelanayeen xubnaha koongareeska maraykanka waxa uu waramayey wariyahena zaare cabdi axmed uu ugu waramayey stuudiyaha v o da ee magaalada washington. subax wanaagsan weli Washington ayaad nagala socotaan. Cabdi Aadan Nageeye waa orodyahan Soomaali ah oo u ordo dalka Netherlands amaba Holland. Cabdi ayaa toddobaadkan ka qayb galay orodka maratoonka Boston ee gudaha dalkan Mareykanka sanadkan 2018 oo kaalinta toddobaad uu ka galay. Haddaba waxaa asaga oo ku sugan magaalada Boston uu orodkiisa iyo taariikhdiisaba uga warramay qadka Skype-ka wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere. orodkan waxaan orday 2 sano ka hor xilliga Olympics isku diyaarinayay 8 ayaan soo galay doraadna waxaan soo galay booska toddobaad anoo rajeynaya laakiin inaan ama badiyo ama 1 2 3 soo galo xataa labada mar socday nasiib xumo orodkan hadda ka shaqeeyo orodka adduunka ugu weyn ka mid yahay adi waxa la barbar dhigi karaa sida tenniska oo kale waxaan la dhaho Grand Prix ha sida ka Francisco dhaca iyo Mareykanka iyo US Open iyo Wembley kuwaas oo kale ayaa la mid dhigi karaa marka maxaan dhahaa qabow zaid ayaa jiray baraf badan dabeel badan ayaa socotay roob badan marka nasiib xumo orodka markuu 20 kilomitir marayo oo half la gaarin ba ayaa hamstringa muruqan barida hoosteeda ku yaala ayaa aad i xanuunay saasna anoo soo kutubaya iska dhameeyay toddobaadna soo galay booska labaad ku jira ayaa ilaa toddobaad gadaal u dhacay laakiin alxamdulillah hadda lugta ay xanuunaysaa laakiin aad ay u fiicnay orodka dhameeyo maadaama ilaa 25 Kenyan Ethiopian gaaray orodka bixin qowga daraadiis dad badan ay orodka dhameey waayeen anigu laakiin waxaan isku taxallujiyay inaan dhameeyo oo saa ano hadda haweeneydii dhisan tahay inkastoo dhaawac culus yahay orodka isku dhameeyo waan gartay waxaad iga warantaa dalka Holland iyo haddii ay jiraan orodyahano Soomaaliya ka soo jeeda sidaas oo kale dalka Holland dhowr ayada soo baxaysa ayaa jirta yarada iska fiican Maxamed Cali Dhoosna uu jira sida dalka Yurub ay u soo baxayaan dhalinyaro badan ayaa jirta qaarkood intoo qaar dhalinyaro badan waxa la dhigi karaa xilliga Mo Faarax Maxamed Faarax markuu caan noqday ee ordada bilaabeen laakiin taa ka hor anoo 10 sano ordaya yarka Bashiir Cabdillah oo dalka Belgium sano orda oo aad u laacabsan Mareykanka waxaa jooga Xasamiid Maxamed oo reer Canada ah ragaas daddan xilliga Mo Faarax oo ordaya ay wada ordayeen Mustafa Maxasna waa Sweden oo hadda ka joojiyay laakiin orodka heerka caalamiga marka dhalinyaro badan waxa la dhigi karaa laakiin hadda soo baxaysa ayaa jirta inkastoo kuwaas caqabado badan haystaan oo waxay u maleeyaan orodka Maxamed Faarax ordaya marka ay waxay leeyihiin adna waa kartaa marka sanad gudaheeda rabay inay ku keenaan mana ogani keen 20 sano ordayo anoo ka 12 sano ordayo ama ilaa 10 sano Bashiir Cabdillah 10 sano dhalinyarada kalena 10 sano ka badan marka insha Allah dhalinyarada soo bixi doonta laakiin waan gartay waxaad iga warantaa ugu dambeyntii mustaqbalka iyo waxaad hadda doonaysid inaad gaadhid xilliga soo socda wallahi waxaan rajeynayaa in hadda orodka aan ilaa 2 Olympic ku sii jiro anigu ma rabo inaan 40 dhaafin aan sii wado ka bacdina isku dadaal dhalinyarada inaan wax u qabano Cabdi Bilo kale saaxiibo fiican ayaan nahay
hadda Soomaaliya ayuu maaliyada joogay oo waxyaalo badan isku dayay in laga qabto intaasna waxaa markii hore suurtageli weysay security-ga iyo dadkii horta nolosha waxa u horeeya waa nabad iyo waxa codina heshid marka sport lagu mashquuli karo marka hadda waxaan isku dayaynaa bahda media hadana kala qayb qaado fiicnaan lahayd dhalinyarta inaan baraarujino oo sportiga niyad ugu dhisno haddaan iska fiiriyana saaradka kusii wadi doonaa waxaan diyaarinaa ciyaaraha Yurub oo Berlin ka socota waxay ogtahay in anagu ku jiro top favorite-ka oo macnaha orodka qaadi doona ama 2 iyo 3 soo gali doona ka dhaawacan doo isaa muxuu ka soo dhaawacan aan ka cabsanayno mid culus yahay oo iga hakin doona orodkaas tus iga hakin laakiin ilaahay saamaxo waxaan rabaa ciyaaraha hadda soo socda oo Berlin بعدين حبت سنة وسنة عيارها أولمبيكية طوكيو كده عندنا أساسا يسوي دونا. عبدي آذن نجاي أو أرديهن الصومالي أو أردي دلك النذرلان أيو كاسي أها خط كإسكيب كوح ورمي محمد عبد السنديري برنامج كنا قبناها VOA ده تضبط كنا وكجرا صوم وقال أهنا وحات كداون كرتان سد بيرو بسيت كنا voasomali.com. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba xeerbeegti ku sugan magaalada Garden City gobolka Kansas ee dalka Mareykanka ayaa arbacadii shalay dembi ku helay 3 nin oo caddaan ah oo doonayay inay qarxiyaan guri iyo masjid ay leeyihiin dad Soomaaliya oo gobolkaasi degan dhacdadan oo idaacadeena VOA dhowr mar ay baahisay ayaa ku beegneed bishii Oktoobar ee sanadkii 2016 haddaba go'aanka xeerbeegtidan ayaa waxaan ka wareystay garyaqaan Intisaar Cali Fidhan oo ku sugan magaalada Houston ee gobolka Texas. xeerbeegtigaasi waxa ay ka koobnaan 6 nin iyo 6 dumara oo cadcad waxaanay go'aan ku gaareen inay nimankaasi marka ay ka baaraan degeen ay eegeen cadaymihii lagu hayay inay yihiin nimankaasi dambiilayaal oo lagu qaaday inay yihiin lagu helay inay yihiin dambigaas. waan gartay hadda dambigu waa lagu helay maxaa xigaya oo halkan marka laga dhaqaaqo waxaa xiga had iyo jeer marka kaysaska noocan oo kale ay dhacaan sideedaba kuwa ciqaabta ahi waxay sii kala leeyihiin marxaladay sii kala maraan laakiin kayskan iminka oo kale nimankan waxaa lagu helay inay yihiin argagixiso oo ay aada u interest gareynayeen dowladda federaalku isla markaana ay tahay kays aada u culus uu yahay waxa dib bay u qaadanaysaa waxay noqonaysaa in loo eego arrimo fara badan nimankan bacdamo lagu helay inay geysanayeen fal argagixisnimo ah haddana in loo eego mid kastaba case kastaba qof kasta 3 ninba mid kastaba goonidiisa loo eego inta sanadood ee uu qalmaayo inuu jeel galo. waan gartay marka goorma go'aanka amaba inta sana lagu xukumayo la ridaya had iyo jeer waxay noqotaa haddaan isla markiiba aan halkaa lagu siinin intay gelayaan 3 cisho kama badnaato. waan gartay waxaa jira in la sheegay in nimankan lagu ogaaday inay doonayeen inay falkan geystaan maadaama uu ku dhex jiray qof FBI-da ka socda oo waxa ay sheegayeen oo dhan duubayey taasina ay keentay markii maxkamadda laisla yimid in xeer ilaaliyihii amaba dacwad oogihii iyaga ka soo horjeeday uu helay caddaymo ku filan iyadoo la eegayo waxyaabihii qofkii FBI-da ka socda ee iska dhigayay inuu iyaga la jiro uu ka duubayey marka arrintan oo kale waynu aragnay carruurtii Soomaalida ahayd ee la yidhi waxay u socdaalayeen Suuriya ee reer Minnesota dabcan iyagana waxaa ku dhex jiray qof FBI-da la shaqeeyo duubayay waxay ku hadlayeen oo dhan marka arrintani ma arrin caadi ka ah FBI-da dhexdeeda had iyo jeer FBI-du waxay ku shaqaysaa arrimo ah inay soo helaan macluumaad fara badan oo xagga teknolojiyada xataa ay dadka ay dhex galaan oo ay jiraan dad loo tireerin siiyaba inay dadka ay dhex galaan si ay usoo ogaadaan waxyaabaha aanay issue aanay qabanin ee maaragtay ka qarsoon marka arrintan oo kale way noqonaysaa arrimihii dhalinyarada Soomaalida ahayd ISIS iyo amba gruubyada kale ee magaranaysa argagixisooyinka doonaya inay ka qayb galaan waa arrimihii lagula dhaqmay. waan gartay marka Soomaalidu berigaa waxay u arkaysay in laga gardaran yahay oo carruurtan Soomaalida qofkii FBI-da ka socday uu ku riixay inay dembigan galaan laakiin marka aad tii shalay ka dhacday Kansas u barbardhigtid maxaa la odhan karaa runtii waxaa laga yaabaa inay inagii nagu Soomaalida ay ku cusub tahay laakiin arrimaha caynkan informant bay yidhaahdaan uu dhex galo dadka aad iyo aad bay u isticmaalaan manaha wax imika un ay bilaabeen FBI-du waa arrimaha ay kusoo shaqeynayaan ilaa weligood.
aad iyo aad baad mahadsan tahay. taasi waxay ahayd intisaar cali fidhin oo ah garyaqaan ku sugan magaalada houston ee gobolka texas. khadka telefoonka ee magaaladaas ayayna igu warramaysay. markanna ku soo dhowaada ciyaarihii iyo maxamuud mascade. kulanti waxaan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. horyaalka waddanka talyaaniga habeenkii xalay ahaa kulamo adag ayaa kooxuhu iskaga hor yimaadeen. kooxda kubadda cagta ee yuventus ayaa la celiyey halka kooxda kubadda cagta ee nabolina ay dhibcihii ay lumisay toddobaadkii hore ay dib u soo ceshatay. benevento haddii aan ku bilaabo ayaa gurigeeda lagu garaacay oo 3-0 waxaa kaga badisay kooxda kubadda cagta ee atlanta. kooxda kubadda cagta ee lasvarona 1-0 waxaa kaga badisay sassuolo. roma waxa ay 2-1 ku garaacday kooxda kubadda cagta ee genoa. kooxda roma ayaa waxaad moodaa in uu calankeedu maalmahan babanayo maadaama ay weli ku naalloonayso farxaddii ay kala soo kulantay kooxda kubadda cagta ee barcelona guushii ay ka soo gaartay oo weli warbaahintu sidii bay uga hadlayaan. isbaal ayaa la kulantay kieva barono oo eber iyo eber bareeja ayay ku kala tageen. kooxda kubadda cagta ee napoli ayaa sidaan idiin sheegayba guuldarradii toddobaadkii hore bareejada ahayd ka soo kabsatay oo 4-2 waxa ay ku garaacday kooxda kubadda cagta ee udinesa. 3 dhibcood ayayna halkaasi ka soo qaadatay kooxda kubadda cagta ee napoli. ciyaaryahanka la yidhaahdo insane oo toddobaadkii hore gool qurux badan ku qubaystay islamarkaasina u suuro gelin waayay inuu milaan shabaqeeda taabto ayaa qaybtii hore ciyaarta gool kooxda ugu daahfuray. raul abiol ayaa u labeeyey kooxda kubadda cagta ee napoli halka ciyaaryahan melik oo isaguna fursad khatar ahayd toddobaadkii hore isna ka khasaariyay kooxdiisa. ayaad moodaa taageerayaasha kooxdiisa inuu leeyahay raalli iga ahaada oo caawaanba idii badiyey. ciyaaryaha kale la yidhaahdo tonelli ayaa isaguna goolka afaraad ee kooxda u dhaliyey. sidaasi kooxda kubadda cagta ee napoli waxay ku soo durugtay yuventus oo xalayto ay ku dhacday dibir aanay filaynin. 1-1 bareejaha waxaa ku celisay kooxda kubadda cagta ee karatone oo kooxda yuventus oo gool la hormartay qaybtii hore ayaa qaybtii dambe la bareejeeyey. sidaasina 2 dhibcood ayaa lagaga jaray. haatan kooxda yuventus waxay ka sarraysaa napoli 4 dhibcood oo keliya. sambadoria ayaa 1-0 dirqi ah waxay ku martay kooxda kubadda cagta ee bolonia. kooxda kubadda cagta ee torino oo gurigeeda ku ciyaaraysa magaalada torinona waxa ay 1-1 bareeja isku celiyeen AC Milan oo 2 toddobaad oo xiriir ah ciyaarteedu ay barbara ku soo dhammaatay. hase ahaatee kulankii wacdaruhu waxa uu dhex maray habeenkii xalay ahaa kooxaha kubadda cagta ee Fiorentina iyo Lazio. waxaa lagu ciyaarayay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina gurigeeda. qaybtii hore ciyaarta markii ay socotay 14 daqiiqo oo keliya 2 rooso ama calaamadda guduudan ayaa labada kooxood ciyaaryahanadooda loo kala taagay. 7 daqiiqo markii socotay Fiorentina ayaa laga saaray Sportello ninka la yidhaahdo ayaa bannaanka loo saaray. ka bacdina waxaa isna laga dabageeyey 14 daqiiqo markay ahayd 7 daqiiqo kadib ciyaaryahan Namrugia oo isna calaamadda guduudan loo taagay. fursaddaasi waxaa ka faa'iidaysatay kooxda kubadda cagta ee Fiorentina oo 2 gool oo degdega la timid. waxaana isla qaybtii hore ciyaarta labadaasi gool u soo guday kooxda kubadda cagta ee Lazio ciyaaryahanadooda la kala yidhaahdo Alberto iyo Caraceres. sidaasina waxaa lagu kala nastay eber 2-2. markiise qaybtii dambe la isugu soo noqday kooxda kubadda cagta ee Lazio ayaa guul heshay oo kooxda kubadda cagta ee Fiorentina goolkoodii saddexaad amaba kiisii saddexaad waxaa u saxiixay ciyaaryahanka la yidhaahdo Vertat oo isagu 3 gool habeenkii xalay ahaa kooxda kubadda cagta ee Fiorentina u dhaliyey. laakiin goolashiisaasi waxba kama jiraan waxaa ka soo qaaday ciyaaryahanka la yidhaahdo Anderson iyo Luis Roberto oo goolkii guusha daqiiqadii 72 ugu damaashaaday kooxda kubadda cagta ee Lazio oo u baahnayd 3 dhibcood inay halkaasi kala soo hoyato habeenkii xalay 4-3 ayay guusha ku raacday kooxda kubadda cagta ee Lazio. haatana waddanka Spain Espanyol iyo Eibar oo kulmay. Eibar ay 1-0 ku badisay. Valencia waa la garaacay oo Cadafe ayaa 2-1 ku qabatay. hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid ayaa dirqi kaga baxsatay Atletico Bilbao oo 1 gool ayaa lagaga hormaray. daqiiqadii 87 ayaa wiilka ay ku dhaarato ee Cristiano Ronaldo sidiisii waxa uu gool u dhaliyey kooxdiisa oo halkaasi 1 dhibic ka qaadatay. waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa waxay la ciyaartay AFC Bournemouth. waxaa lagu ciyaarayay guriga AFC Bournemouth waxayna kooxdu ku badisay waa Manchester 2 gool iyo waxba. ciyaaryahanada la kala yidhaahdo Smalling iyo weliba Lukaku oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolashaasina u saxiixay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. waddanka Maraykanka haddii aan jaleeco ciyaaraha NBA-da kulan goor dhoweyd soo gabagaboobay islamarkaasina xiiso badnaa ayaa waxa uu dhex maray
kooxaha kubadda kolaygaan idhaahde afkayga kubadda cagta u bartee ayaa waxa uu dhex maray kooxaha indiana pacers iyo cleveland cavaliers lugtii hore waa la soo garaacay oo weliba gurigeeda lagu garaacay kooxda cleveland cavaliers hase ahaatee caawa waa ay badisay oo 3 dhibic oo keliya ayay guusha ku raacday ciyaaryahan lebron james ayaa waxa uu dhaliyey 46 dhibcood waxaana ciyaartaasi ay ku soo gabagabowday 100 dhibcood iyo 93 dhibic waxaana haatan labada kooxood ay kala haystaan min hal guul waxaa laisla aadayaa kulanka kan xiga magaalada indianapolis ee gobolka indiana oo kooxda indiana pacers ay ka dhisan tahay dhegaystayaal xubinta ciyaaruhuna waa naga taatane kulan dambe waa mascad oo idila sidaa iyo nabadgelyo aad iyo aad buu mahadsan yahay maska iyo ciyaarihii haatanna dhinacii heesaha saare cabdi